بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu socdo koorsadeeni xisaabta fasalka fanfoorka introduction ka wali ku jira introduction insha Allah maanta soo gabagabeynayna hadii la yiraahdo kadibna insha Allah manhaj cusub aan soo galeynaa introduction ka qaybtii hore waxaan ku soo qaadanay ciwaano kala duwan oo soo dul maray oo runtii is xusuusin aha waxaan ku bilownay trigonometry taariifkiisa waxaan ku sheegnay trigonometry inuu iska saaran yahay laba eray oo kala trigono iyo metry oo trigono macnaheedu yahay triangle metry inuu yahay measurement marka la isku qabtana noqon doono cabirka saddex xagalka inta badan aan dhahan waxaan daraasayn doonaa saddex xagalka cabiradiisa iyo propertieskiisa haday noqon lahayd dhinacyadiisa iyo xaglihiisa sidoo kale waxaan soo sheegnay triangle inuu iska kooban yahay saddex dhinac iyo saddex xaglood saddexda dhinac waxaan ku sheegnay magacyo inay kala leeyihiin midba mid kale hadii loo qaybiyo ka soo baxayo macna gaar inuu yeelanayaa soo sheegnay si fiican insha Allah uga soo hadalay sidoo kale waxaan ka soo hadalay wax la yiraahdo angle waxa la yiraahdo xagal waxaan ku sheegnay markay falaad taagan ay falaad kale ka dul kacdo waxa la yiraahdo wax ka dhalanaya ama space ka labada falaad u dhaxeeyo yaa la yiraahdo xagal si fiican baan soo qeexnay waxaan sheegnay sidoo kale xagashu inay u wareegsato laba nooc oo kala ah clockwise direction jihada saacad wareegayo anti clockwise direction ama counter clockwise direction oo ah jihada lid saacad wareega sidoo kale waxaan soo sheegnay in xagasha lagu cabiro degree iyo radian mid ka mid ah lagu cabiro marka sidoo kale waxaan ka soo hadalay waxa la yiraahdo standard position of angles yani angles xaglaha meesha standardka laga cabiro waxaan angles waxa laga cabiraa positive x axis laga cabiraa saadaradeed markii positive axis laga cabiro Cartesian plane-ka wuxuu qaybinaa ilaa afar waaxood oo quadrant 1 iyo quadrant 2 iyo quadrant 3 iyo quadrant 4 oo kala qaybinaa waxaan soo aragnay marka quadrant 1 range ka kacdo waxaan waxa ka kacdaa 0 ilaa 9 quadrant 2 waxa ka kacdaa 9 180 quadrant 2 waxa u dhaxaysaa 180 ilaa 270 quadrant 4 kuna wuxuu u dhaxeeyaa 170 ilaa 360 shantaas marka dhacan macnaha axis ka dhacan waxaan ku sheegnay quadrantal angleska waan soo proofnay si fiican soo proofnay kadib waxaan maanta proof doonaa hadii la yiraahdo kuwa special angleska aan ku sheegnay saddex xaglood oo waaxda koobaad dhaca oo la kala yiraahdo 30 45 iyo 60 ayaa special angles la yiraahdo waxaan proof doonaa inuu isticmaalana basic trigonometry functions ka isticmaal doona ku proof doona qiimayaasha ku leeyihiin trigonometry yaan arki doonaa hadii la yiraahdo marka waxaan soo qaban doonaa 30 iyo 60 isku qaban doonaa kadibna 45 gaar ah proof doona markaan proofna technique aad u fudud oo waxna ka fudud insha Allah aad wax walba ku saalay ayaan raacin doonaa insha Allah qaybasan ku soo gabagabeyn doona hadii la yiraahdo bal hadda aan aragna marka special angle-ka waxaan israacsiin doonaa 30 iyo 60 hal mar isla proofina ama hal triangle ku proofina triangle-ka waxa la yiraahdaa equilateral triangle waa saddex xagal dhinacyadiisu isku mid yihiin xaglihiisuna isla leeyihiin waa saddex xagal waxa loo yaqaan dhinacyo saddexdiisa dhinac waa equal saddexdiisa xagaloodna isla leeyihiin oo saddexdiisa dhinac waxaan maadaama isla leeyihiin waxaan u qaatay inay laba iyo yihiin qaacidan ku burufanaya waxa aad rabtaa qaadan kartaa saddex lambar isku mid ah qaadan kartaa a iyo qaadan kartaa 1 iyo 1 iyo 1 qaadan kartaa marka waxa rabtaa qaadan kartaa xaglihiisuna waxa waaye waa 60 iyo 60 iyo 60 oo ah waxay isku buuxiyaan triangle-ka san introduction ku soo sheegnay 180 isku buuxiyaan marka 60 diluudar 60 waa 180 marka triangle-ka saas oo ah hadii aan dhaxda ka kala jaro qaybtan dhexe 60 kan dhex bartamaha kala jaro 30 iyo 30 kala noqon oo dhanka 30 noqon dhankana 30 hadaan marka qayb kamid ah soo goosto tusaale waxaan soo goostay qaybtan aan maanta soo goostay waa kana intaan keensaday oo qaybtan angle-kan waa 60 oo waa kana dhinacan waa 2 laakiin dhinacan maadaama inta uu 2 ahaa halfkan wuxuu noqonaa 2 kala qaybsan hal noqonaa marka kan hal noqonaa kana radical 3 ku noqonaa oo radical 3 wuxuu ku noqonaa waxa isticmaalaysa xeerkii Pythagoras theorem isticmaalaysa Pythagoras theorem wuxuu dhigi jiray dhinaca ugu dheer oo la isku wargareeyay wuxuu la mid yahay laba dhinac oo isku daro la isku wargareeyay marka dhinacan wuxuu noqon doonaa hadaan u qaato inuu x yahay wuxuu noqon doonaa dhinaca ugu dheer oo la isku wargareeyay oo ah 2 squared minus 1 squared oo square root ka laga saaray marka x waxa soo bixi doona 2 hadaan square garay waa 4 hadaan halka jaro waa 3 square of 3 marka x inta saas ku imaado marka square of 3 saas ku imaado waa xeerkii sideedaadkii toddobaadkii fasalada hoos lagu qaadan jiray Pythagoras theorem ama aragtidii Pythagoras kaas waa midaas hadii marka inta haysato waxaan xagashana istaaga 30ka oo waxaan ka bilaabaa meeshan sin 30 qiimaha sin 30 halka xagashana taagan tahay sin waxa lagu wari jiraa dhaan inoo isticmaalna sin waxa lagu wari jiraa opposite oo loo qaybiyo hypotenuse markii angle-kan aad joogto opposite-kiisu waa 1 hypotenuse-kiisu waa dhinaca ugu dheer ama shakaalku waxa waaye waa 2
marka sin soddon waxaa la mid half 1/2 marka meel walba ku aragto sin soddon 1/2 half ku bedelan doontaa waxaa ku sidoo kale cos soddon cos soddon maxaa lagu heli jiray cosku waa waxaa lagu dabcan waxaa lagu heli jiray adjacent oo loo qeybiyo hypotenuse adjacent aawe soddonka iyo adjacent ah kana radical 3 adjacent ah waxaan noqonaa marka radical 3 loo qeybiyo hypotenuse oo 2 ah radical 3 over 2 marka cos soddon waa radical 3 over 2 tan soddon marka maxaa la mid tahay tan soddon waxaa la mid tahay tan soddon waxaa lagu heli jiray opposite loo qeybiyo adjacent opposite marka opposite waa 1 adjacent dabcan waa radical 3 1 over radical 3 marka numberka waxaa la irrational number marka rational number marka artana ka dhigto dhan walba waxa ku dhufanaysaa radical 3 numberka ma qurxisata maana waxa ku soo kordhismaa radical 3 ma ku dhufato laba markaas u qaybsa hal oo ku dhuftay laba dhinacba waxa ka soo bixi doona kan markaas ku dhacaan waa radical 3 radical 3 haddaan radical 3 ku dhufto nambarada gudaha ku jira isku dhacayo waa radical 9 haddaan ka saaro waa 3 saa daraadeed maxaa la yidhaha sheeg tan soddon waxaa soo baxay radical 3 over 3 radical 3 over 3 inta ugu qor marka tan soddon waxaa soo baxay radical 3 over 3 radical 3 over 3 intaas waa markaa soddon joog waxaad u imaadaa 60 markaa Soomaaliya isla triangle kana isticmaalayo anoo istaagay xagashan ka fiirina xagashan markaa ka fiiriyo opposite-kii waxa isbedelaya adjacent-kii hypotenuse waa sidiisa oo markaan dhaho sin 60 markaan dhaho sin 60 waxaa lagu heli jiray opposite loo qeybiyo hypotenuse opposite maanta waa radical 3 waa radical 3 hypotenuse maanta waa 2 sin 60 waa radical 3 over 2 cos 60 waa adjacent loo qeybiyo hypotenuse adjacent maanta wuxuu noqonaa waa 1 hypotenuse waa 2 marka cos 60 waa half tan 60 uma marka tan 60 wuxuu noqonaa opposite loo qeybiyo adjacent opposite waa radical 3 adjacent waa 1 radical 3 haddaan 1 u qeybiyo waa iska radical 3 dabcan taas waa istaa marka sin soddon waa haystaa cos soddon waa haystaa tan soddon waa haystaa sin 60 cos 60 tan 60 waa haystaa waxaa inoo dhiman bas 45 ka inoo dhiman qaybta 45 ka 45 ka markaan ka burufanaa shape-kan square shape-kan dabcan markii la joogo geometry-ga properties-kiisa waxaa ka mid ah dhinacyadiisa dhan way isla egyihiin dhinacyadiisa oo waxaa lagu heli jiray xasuus mataqaanaa dhinac la isku wargareeyo lagu heli jiray areas waayo dhinacyadiisa dhan way isla egyihiin dhinacan marka 1 iyo 1 soo qaatay maadaama isla egyihiin sidoo kale xagliisa dhan way isla egyihiin xagliisa dhan waxa waaye waa wada 90 degree waa wada xagal quman 90 haddii markan ay diagonal ku sameeyo diagonal haddaan halka diagonal ku sameeyo halka ka jarto dhaxda haddaan ku sameeyo 45 kan haddaan 90 kan haddaan laba kala jaro waxaa ka soo meesha waa 45 iyo 45 kana 45 iyo 45 haddaan marka qaybta soo goosto qaybtana soo goosto intaan kaysada fiiri 90 waa kana waa 90giisi kaas 45 u noqday kana 45 u noqday kan waa 1 kana waa 1 laakiin kan muxuu noqonaa hypotenuse uu noqonaa 1 uu ka weynaana kan la isku wargareeyo lagu daro kan la isku wargareeyo radical laga saaro noqonaa oo dhinaca wuxuu noqonaa hal la isku wargareeyo lagu daro hal kale la isku wargareeyo oo isku wargareeyo laga saaro marka radical 2 noqonaa adigu inta haysatid sin dabcan hadda labadan angle kaarta istaagi kartaa waayo waxa isosceles triangle la yiraahdo waa triangle laba dhinac isku mid yihiin labada xaglan isku mid yihiin marka labada dhinac waa 1 labadan xaglan waa 45 marka isosceles triangle la yiraahdo haddaan xagashan istaagto 45 sin 45 waxay la mid tahay opposite loo qeybiyo maxaa la mid tahay hypotenuse opposite waa 1 hypotenuse waa radical 2 rational number sano dhigi kara radical 2 dhan walba ku dhufanaa waxaa soo baxa marka haddii kan aad ku dhufato waa radical 2 giyon haddaad kan hooseeya isku dhufataan radical 2 haddaad radical 2 ku dhufato waa radical 4 oo ka baxa waa 2 marka sin 45 waa radical 2 over 2 cos 45 maxay la mid tahay waa adjacent-ga oo loo qeybiyo adjacent-ga waa 1 hypotenuse-kuna waa radical 2 isla kan hadduu 1 over radical 2 buu la mid yahay waxaa soo bixi doona radical 2 over 2 sida kan baa dhan walba radical 2 over 2 ku dhamaan radical 2 over 2 waxaa kuu soo haray tan 45 marka waxaa la mid tahay opposite loo qeybiyo adjacent opposite maanta waa 1 adjacent waa 1 haddaan 1 u qaybiso waa 1 marka sin 45 waa radical 2 over 2 cos 45 waa radical 2 over 2 tan 45 na waa 1 tan mid kale waxaad dhigi kartaa tan 45 waxay ka imaaday ratio-ha ama saamiga sin 45 loo qeybiyo cos 45 waa radical 2 over 2 loo qeybiyo radical 2 over 2 laba number oo isku mid haddii la isku qeybiyo hala ka soo baxay saasna ku heli kartaa maadaama saas ku buruufna hab yar oo fudud oo inta ka fudud insha Allah technique fudud aan raacinayna hadii la yiraahdo si maxal la yiraahdo sheeg aad buruufka uga kaaftoonto marar qaar marka u baahato okay maadaama buruufka soo aragna waxaan sameeynaa special technique ama technique aad u fudud oo buruufka kaga kaaftoomi karto oo aad uga fudud marka technique waxaan sameeynaa meesha waxaan ku haysanaa
basic trigonometry functionski oo sin iyo cos iyo tangent ah meeshan waxaan ku haysanaa special angleski marka maadaama aysan waxaan rabaa inaan soo saarno sin 30 iyo sin 45 iyo sin 60 si fudud aan ku soo saarno sidoo kale cos 30 cos 45 cos 60 si fudud ku soo saarno taana sidoo kale waxaan sameyn karaa marka technique la socdo afar step bas aan sameynaa step koowaad meesha waxaan ku qoranaa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dabcan waa tirooyinka tirsiime caadiga 1 2 3 tirooyinka tirsiime waa marka 1 2 3 marka meesha ku qorato square root mid walba ka saara square root gelina square root geli square root geli square root markaan geliyo stepka labaad waa stepka saddexaad ma sameeyna mid walba labaan u qaybina laba u qayb laba u qayb laba u qayb stepka afraad ugu dambeeyo wixii square root ka baxay ka saar wixii square root ka baxay ka saar oo hadda dabcan 1 square root ka baxaysa maxaa ka baxaysa 1 hadii square root waa 1 usma inta kale ka baxaysa waa saadaradeed sin wasta sin 30 waxa la mid ah waa half waan soo buruufna daay sin 45 waa radical 2 of 2 sin 60 waa radical 3 of 2 waa hab simple ah oo mataqaana wax walba ku sahlaya sin ka meesha ku buruufnay cos-ka u imo cos-ku kan cagsiis waa laba mid sameyn kartaa inaad qiimahan dib u soo geliso dib inaad qiimahan soo geliso oo si reverse ko kale reverse oo soo geliso qiimahan dib u soo geliso ama inaad tiraahdo kii cagsiisa tiraahdo aad tiraahdo meesha ku qorto 3 2 1 saddex laba hal hadaa koob laba saddex samaan koob laba saddex dib u soo gali ama saddex laba hal dheh kadib square root gali stepka labaad square root gali laba u qayb stepka saddexaad laba u qayb stepka afraad wixii ka bixi ka saar kana ka bax marka 1 bis ka bax inta kale ka baxayaan oo inta kale waa sadis kuna square root kama bixi jir number of square root waa marka kana wuxuu noqon doonaa cos theta waxa la mid tahay radical 3 over 2 half iyo 1 waa inta dib loo soo galiyo tan theta omo tan theta waxa ka mid jirtay waxa ratio loo qaybay sin iyo cos ay ka mid jirtay marka tan theta waxa la mid tahay tan theta waxa la mid tahay half loo qaybay radical 3 of 2 oo hadii aan half kan u qaybiyo sababtoo tan theta waxa ku iman jirtay tan theta waxa la mid ahaan jirtay sin theta loo qaybay cos theta la mid ahaan jirtay marka maanta sin theta ma qaadaysta waxaan haysanaa half loo qaybiyay half waxaan u qaybinaa radical 3 over 2 marka labadan oo rabo inaan soo qaybiyo maxaa sameeyaa labadan kan isla bixi waxa ka soo hor doona 1 over radical 3 maxaa ku dhufaysaa dhan walba radical 3 sa rational number uga dhigta radical 3 ku dhuf hada kan 1 radical 3 ku dhufato waa radical 3 hada radical 3 ku dhufto waa 3 marka kan waxa ka soo bixi doona radical 3 over 3 adoo isticmaal doona complex fraction ka caadiga soo baratay waxaad imaada marka kan waxa soo saarnay tan 30 oo la mid ah radical 3 over 3 waxaad imaada tan 45 waxa ka imaada sin 45 oo loo qayb cos 45 radical 2 over 2 loo qayb radical 2 over 2 waa 1 dabcan laba lambar isku mid soo qayb waa 1 okay kana ugu dambeeya ku imaada tan 60 waxa la mid tahay sin 60 oo la mid ah radical 3 oo la mid ah radical 3 over 2 oo loo qayb half oo cos 60 hadii labadan marka rabtana soo qaybis maxaan sameeynaa dabcan kan isla bix radical 3 bis ku saaray marka kan wuxuu leeyahay radical 3 easy way habka fudud marka labada hab ee hore way fudud sin cos ku fudud kana ratio-da dad qaybta taqaana ama fraction ka caadi taqaana hore ka saaran kartaa very simple intaas waa xalka marka habka ugu fudud ku saaran karto technique intaas ku soo gabagabeeyna waxa rabaa inaan ku daro hal ciwaan oo yar oo ah quadrantis kan waxa ugu laab marka quadrantiga laga hadlaayo xaglaha markii laga hadlaayo Cartesian blank markaas warano xagasha koowaad waa 0 ilaa 90 quadrant 1 oo bixin quadrant 2 waxaan 90 ilaa 180 waxaan quadrant 2 waxaan bixinay quadrant 2 180 ilaa 230 waxaan bixinay quadrant 3 230 ilaa 360 waxaan bixinay hal wareeg dhameystirnaa quadrant 4 marka quadrantiga markii laga hadlay basic trigonometry function markii laga hadlay quadrantiga qaybna waa positive qaybna waa negative oo markii xagasha koowaad la joogo sin iyo cos iyo tangent waa wada positive dhamaan wada positive all positive all loo qata all waa positive markii quadrant 2 la joogo sin bas positive sin bas positive saddex kale labada kale iyo dhamaan kale waa negative markii la joogo quadrant 3 tangent waa positive tangent positive markii la joogo quadrant 4 waxa positive cosine oo marka fiirso marka saddexdii basic trigonometry function ka mid walba laba xagalood buu positive yahay oo sine wuxuu positive yahay xagasha waaxda laba waaxood waaxda koobaad iyo waaxda labaad
كوسك وحب بوزيتيف واحد كوادي وواحد افراد تانجنت وحب بوزيتيف واحد كوادي وواحد صدحاد بوزيتيف انت marka waa xal marka loo soo gaabiya statement kana loo soo gaabiya ama lagu fahmo all students take chemistry ama calculus oo macnaheedu la wado all student waa xagasho waaxda koowaad waa dhamaan wada positive waaxda labaadna sign positive oo student s laga soo gaabi waaxda saddexaadna tangent positive oo t loo soo gaabi waaxda afraadna sida positive oo cos laga soo gaabi intaas yaa loo soo gaabiya waxa jira marka special angles laga hadlayo xagla la yiraahdo reference angles la yiraahdo jira xaglaas marka waxay leeyihiin special angle hal mar hadaa ayagana soo koobno reference angleska markii la joogo special angle-ka 30 waxaa la qiimo ah oo waaxda maadaama waaxda koowaad yahay waaxda labaad waxaa la qiimo ah 150 waaxda saddexaadna waxaa la qiimo ah maxaa la yiraahdaa waxaa la qiimo ah 210 waaxda afraadna waxaa la qiimo ah 330 intaas waa isku wada qiimo laakiin maxay kala duwanaan karaan bas negative bas oo waxa laga yaabaa labadan waa positive labadan waa negative waa isku qiimo oo tusaale ahaan sin 30 iyo sin 150 iyo sin 210 iyo sin 330 waa isku qiimo laakiin labadan waxay noqonayaan negative noqonayaan kaas waa isku mid waxa ku imaaday 45 waa waaxda koowaad waaxda labaad waxaa la qiimaha 135 waaxda saddexaad waxaa la qiimaha 285 waaxda afraad waxaa la qiimaha عفوا 225 واحد أفراد وحلا قيمة صدح بقول 85 تسوى اسكو قيمة صار لما مركز 60 يمادو 60 واحد كويس كطلع واحد لو حلا قيمة بقول 20 دقري واحد صدح حلا قيمة لا بقول 40 دقري واحد أفراد حلا قيمة صدح بقول دقري أنت اسكو ميد مركز فيرس مركز ما يقع انقلوا كو لابا صدح أفر كو لابا صدح اسكو في أفر صدح اسكو وطبعاً لابا شنتي كوادرات الانجليز كمان قدرته وطبعاً تضوء تريجونومتري ودن بقول كيف السجاش سألوا حلو دراسية طبعاً تضوء حقلود بس مالك بحث مركز جو طبعاً تضوء حقلود دراسية وأنا طبعاً تضوء حقلود كمان قيمة هذا اللي يقانو حلو دراسية مركز كون وبروف كذا مركز ربطينا بروفته قابل يرفضوا له بروفه أو فيرسين بلا أو كوانترتي وان مركز له في تذا الألفاظ واسكو قيمة ومعناه حلقة هذا يعني صدق يا فرشان اللي وقيمة سلية لكن مركز كوانترتو ما كان كوانترتي وان كوا marka quadrature la joogo adartayna soo saarto saddex special angles ka xagasha reference angle ko markii la joogo waxa la sameeyay 180 yaa waxa laga jaraa fiitada laga jaraa tusaale hal tusaale ku siina soddon marka aragta xagasha 150 soo raadiso 180 hada soddon ka jaro 150 soo baxay that means quadrature soddon iyo 150 waa isku qiimo quadrature saddexaad markii la joogo 180 waxa lagu daraa fiito lagu daraa oo markaan soddon soo qaadan soddon hadaan 180 ku daro waa 210 quadrature 4 markaan joogo oo ugu dambeeya 360 ka waxa ka jara maxaa la yiraahdaa ay sheeg fiitada ka jara tusaale ahaan 360 hadaan soddon ka jara 330 soo baxay in labada kale soo ku tijaabin kartaa oo qiimaashan say ku soo baxeen halkaas ku tijaabin kartaa waxaad ogaataa hal mid bas qiimahan soddon afartan qiimo isku qiimo laakiin waxa kala duwanaan karaan quadratic oo waxa laga yaabaa quadratic inay negative noqoto quadrature ay positive noqoto dhici karta marka inta kale waa isku mid intaas aan jeclaysan ku soo koobno introduction-kii waxaan gali doonaa haduu Ilaahay yiraahdo cashirka xiga buugga manhajka si toos u gali doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajayn doonaa inaad introduction si fiican uga faa'iideysateen buuggan insha Allah ka faa'iideysan doontaan buuggu dabcan wuxuu koobiyaa exercise iyo activity iyo example dabcan ana wixii example insha Allah waan xalin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo exercise activity-gana insha Allah waxa laga rabaa inaad adigu si fiican u soo xaliso aad baa mahadsantiin hada billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh